Assalaamu calaykum akhyaarta sharafta leh. Waa Som Crypto oo idiin soo gudbinaya macluumaadkii aad uga barateen. Maantana waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaadka. Sida aad arkaysaan qoraalka halkan ku qoran, waxaa ku qoran shirkadda Google oo aqbali doonta cryptocurrency-ga qof walba oo ka iibsanaya waxa cloud la yiraahdo ama service-ka ay Google-ku ay hayaan. Qofku wuxuu ku bixi doonaa cryptocurrency iyada oo loo isticmaalayo shirkadda Coinbase. Shirkadda Coinbase ayaa ah maadaama bangiyada aysan wax cilaaqaada ama macluumaad aysan u saamixin inay crypto-ga qofka uu ku bixi karo waxyaabaha uu rabo. Way jiraan shirkado saamaxay, laakiin maadaama shirkaddan shirkad weyn ay tahay, waxay si ay safety-gooda iyo lacagta ammaanka uga taxadiraan, waxay dhex mari doonaan Coinbase-ka. Marka haddii macluumaadkan hoos ugu sii soconno, waxaad arkaysaa ninka ugu sarreeya Coinbase-ka ama madaxda ka ah ayaa wuxuu yiri waxaan aqbali doonaa wixii ka dambeeya 2023 macluumaadka uu hayo Google-ka ama wax walba oo macluumaad oo Google-ku uu soo bandhigo inay aqbali doonaan cryptocurrency iyaga oo dhex mari doona shirkadda Coinbase. Halkan ay ku qoran tahay CEO-ga wuxuuna ka hadlay San Francisco. Marka taasna waxay caddaynaysaa in crypto-ga ay ku socoto meel aan la jooji karin amaba ay mustaqbalkeeda aad iyo aad ugu fiican yahay, maadaama shirkadaha adduunyada ugu waaweyn ay hadda ay aqbali doonaan service-yada ama waxyaabaha ay hayaanba. Iyadana waxaa kaloo jira bangigaasna aqbalay, laakiin kaasna waan kugu sheegi doonaa. Weliba ma aqbali doonaan keliya Bitcoin keliya ma aqbali doonaan, waxay aqbali doonaan weliba Ethereum iyo Litecoin iyo coinanka kaleba. Laakiin muhiimadda waxaa waaye inay aqbali doonaan cryptocurrency. Waxaa jira bangiga ugu faca weyn dowladda Mareykanka oo la yiraahdo BNY Mellon oo la yiraahdo ayaa asna wuxuu soo keeni doonaa ama uu keenayba dadka bangigaasi ku leh ama dadka bangigaas account-ka ku leh ama investment-ga ku haystaba in uu u sahli doono inay cryptocurrency-ga ay maalgashadaan ama waxyaabaha aaladahan digital-ka loo yaqaano inay maalgashadaan. Bangigaasna waa bangiga ugu faca weyn Mareykanka. Inta bangi oo yacni ku taalla bangi lamid ah ma jiro. Waxaa la aasaasay xilli maaragtay aad iyo aad u weyn oo waa bangiyada ugu horreeyay ayaan dhihi karnaa Mareykanka. Haddii aan macluumaadkiina marka intaas aan ugu gudubno, akhbaartii aan soo helnay intaas ugu gudubno, guud ahaanba suuqa cryptocurrency-ga markii aan eegno wuu iska maaragtay wuu iska circirayaa maadaama ay ka jirto adduunyada dhaqaale xumo. Laakiin weli adiga 1 trilyan ayuu cagacagaynayaa sida aad arkaysaanba. Wax yar ayaa ka dhiman. Guud ahaan Bitcoin-ka waa iska qiimihiisii oo $19,156 ayuu marayaa. Ethereum-na 1,300 ama 1,298.92. Insha Allah macluumaadkan waa idiin soo si taxane ah ayaan idinla soo socodsiin doonaa. Waana ku mahadsantihiin inaad maaragtay nagula xirnaataan ama aad dhegeysataan. Waxaan kaa codsanaynaa haddii aad fursad u hesho inaad subscribe kanaalka noo tiraahdid adiga oo mahadsan. Halkaas ayaanu kusoo koobaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.